Salaamullah saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan inagu soo biir. Mahadsanid. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in maamul cusub laga hirgeliyo gobolka Awdal, kaasoo si toos ah u hoos imaanaya Dowladda Federaalka Soomaaliya. Qorshahan ayaa loo arkaa mid saameyn siyaasadeed iyo mid amni ku yeelan kara Somaliland oo hore looga sameeyay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay magaalada Laascaanood ayaa xaqiijiyay in qorshuhu weli socdo, isla markaana ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan. Inkastoo qorshahan uu wajahayo diidmo iyo walaac ay muujinayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada, kuwaas oo ka cabsi qaba cawaaqib amni iyo siyaasadeed oo ka dhalan kara, haddana dowladda federaalka ayaa u aragta muhiimad gaar ah in maamulka Somaliland laga sameeyo maamulo toos ugu xiran dowladda dhexe. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha maamulka Awdal loo mari doono hanaan la mid ah kii hore loogu dhisay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka oo ugu dambeeyay maamulka waqooyi bari. Dhanka kale, magaalada Saylac ayaa noqotay bartamaha isqabqabsiga maadaama ay tahay goob istiraatiiji ah oo ay ku loolamayaan dalal danaynaya saameynta khaliijka cadmeed. Wararku waxay tilmaamayaan in dalal badan ay danaynayaan in halkaas ay ka helaan door istiraatiiji ah, taasoo sii kordhinaysa xiisadda iyo cadaadiska ka taagan gobolka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey ugu guuleystay in magaalada Laascaanood laga dhiso maamulka waqooyi bari, kaasoo soo afmeeray joogitaankii Somaliland ee gobolka Sool. Maamulka waqooyi bari ayaa ka soo faracmay maamulkii ku-meel gaarka ahaa ee SSC Khaatuma oo la sameeyay bishii Agoosto 2023, iyadoo muddadaas 2 sano ahayd la qabtay wada tashiyo, shirar ballaaran iyo qorista dastuur ku-meel gaar ah, taasoo ugu dambeyn dhashay maamul goboleed rasmi ah. Maamulka ayaa waxaa haatan hogaamiya Cabdullaahi Axmed Firdhiye oo loo doortay madaxweynaha cusub ee waqooyi bari. Hogaamiyahan oo hadda ka tirsan xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh ee JSB ayaa waxaa gadaal ka riixaya Villa Soomaaliya oo galaangal xoogan ku leh doorashadii hoggaanka waqooyi bari, waxaana haatan lagu caleemo saarayaa magaalada Laascaanood. Magaalada Laascaanood ayaa waxaa hadda ku sugan wafuud kala duwan oo ka socota dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda Jabuuti, ismaamul deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulada dalka, kuwaas oo ka qaybgalaya caleemo saarka madaxweynaha waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sidoo kale ka qaybgalaya munaasabadda caleemo saarka, iyadoo socdaalkan ku soo aadayo xilli ay si weyn iskugu dhacsan yihiin dowladda federaalka iyo Somaliland sababa la xiriira aqoonsiga Israa'iil siisay maamulka Hargeysa.